الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada halkani waa Macalin Abqari YouTube channel maantay maxaan idin wadnaa waa bookii 4000 essential English words ka ahaa oo ka koobnaa 6 book serial ka ahaa bookii koowaad unit-kii 17aad ayaan insha Allah sharaxi doonaa dhamaan ardada ku taxan channel-kan iyo dhamaan bulshada kale ee danaynaysa inay ku soo biirtaba aad baan idin salaamayaa inta kadib waxaan rajaynayaa insha Allah si bulshada kala duwan ee danaynaysa u gaaro inaad insha Allah share-ta iyo like-ta aad ugu dadaashaan ardada cusubna si ay casharada iyo duruusta kale in had iyo jeer soo dhigi doonaa way helaan insha Allah waa inay subscribe sameeyaan insha Allah kamreelkana furtaan waxaa kala jirta duruusta caadiga ahayd ayaa waxay ka socotaa Abqari Online Academy hadaad certificate ku qaadato dad diploma rabtid iyo courseska kala duwan ee luuqada Englishka ayaan bixinaa course kala duwan luuqada barashada Englishka soo dhawaada aad baan idin salaamayaa inta kadib insha Allah waxaan galeynaa sharxaada unit-ka 17aad insha Allah la socosho wanaagsan 20 eray oo target words-ka intaana sharxaadooda u galin waxay nooga horeysaa insha Allah inaynu dhageysano dan kadibna insha Allah hadii la yiraahdo aanu sharxaada galno dhageyso Unit 17 Word list Appreciate To appreciate something is to understand its good qualities. I can appreciate the lovely scenery. Available If something is available, it means you can get it. There were many seats available in the room. Beat. To beat someone means to do better than they do. I managed to beat everyone in the race. Bright. If something is bright, it shows a lot of light. The bright light from the explosion hurt my eyes. Celebrate. To celebrate is to do something to show that an event is special. We all celebrated when we heard the great news. Determine. To determine means to choose or make a decision. He tried to determine which one to eat first. Disappear. To disappear means to go away or not be seen. The top of the building is disappearing in the clouds. Else. If you talk about something else, you talk about something different. I wanted a bike for my birthday, but I got something else. Fair. Fair describes treating someone in a way that is reasonable or right. He sold me his car for a fair price. Flow. To flow is to move easily and continuously in one direction. The water flowed over the rocks and into the lake. Forward. If you move forward, you move in the direction in front of you. When he saw his mother, the baby crawled forward to her. Hill. A hill is a round area of land. It is higher than the land around it. The sun was rising above the green hills. Level. A level is a point on a scale that measures something. Please check the level of the temperature. Lone. If someone or something is lone, they are the only one of that kind. A lone man walked along the street. Puddle. A puddle is a pool of liquid on the ground. When the ice melted, it formed a puddle. Response. A response is the answer to a question. He asked if I was sad. My response was no. Season. A season is a time of the year. Spring, summer, fall, or winter. Fall is a warm season, while winter is very cold. Solution. A solution is a way to solve a problem. There are many problems.
We need solutions. Waste. To waste means to carelessly use something all up. Turn off the water so you don't waste it. Weather. You use weather when you must choose between two things. I could not decide whether to go left or right. inta waxay noogu dhan dhageysashada 20 target wordska unitka 17aad markan insha Allah sharaxaad aanu kalno insha Allah. Haddaba word listiga ama ereyada targetka ereyga ugu horeeya waa appreciate waa maqsuudid waa inaa wax maqsuud ka noqoto ama qiimeyso. To appreciate something inaad wax qiimeyso is to understand waa inaad fahanto it is good qualities macnaha tayadooda waxa wanaagsan markaad ku qiimeynayso amaad fahanto waaye. I can appreciate the lovely scenery. Waxaan qiimeyn karaa lovely markaan waa beautiful waaye. Scenery-na waa goob waaye. Macnaha muuqaal ay idhaahdo. I can appreciate the lovely scenery. Waxaan aad u qiimeynayaa ma aad uga maqsuud uga ahay the lovely scenery muuqaalka quruxda badan. Available waa la heli karo. Available waa waxa la heli karo. If something is available, haddii la yidhaahdo waxaas waa available, it means waxay noqonaysaa you can get it waad heli kartaa. Waa available haddii la yidhaahdo waa wax la heli karo oo meel walba is yaala. There were many seats. Waxaa jiray kuraas fara badan available in the room ee ku jira qolka ama laga heli karo qolka gudihiisa ka bannaan. Available. Beat waa garaacid waa in la tumo wax ama jeedal ama bud wax lagu garaaco ama waxaa la yidhaahdaa ka badin oo kale waa ku garaacay gameka waa ku garaacay ciyaarta waa ku garaacay. Garaacidaas ka badintaana waa loo isticmaalaa. Garaacidda caadiga ah ama jeedal ama ul qof lagu garaacana waa laha. To beat someone inaad qof garaacdo means waxa waaye to do better than they do inaad samayso wax ka wanaagsan dadka waxay sameynayaan. I managed to beat waxaan ku guuleystay ereyga managed waa ku guuleysasho waa hadda maamulid maaha. I managed to beat waxaan ku guuleystay inaan garaaco everyone in the race qof walba ee tartanka ku jiray inaan ka badiyo. Garaaco means inaan ka badiyo ayaan ku guuleystay waa. Bright waa ilays ama iftiin waaye. If something is a bright hadday wax ifayaan ama iftiimayaan it shows a lot of light. Waxaas waxay muujinayaan iftiin fara badan. The bright light iftiinkii ifayay from the explosions ee ka yimid qaraxa. Explosion waa explode ka timid. Qarxid waa heart in my eyes ayaa indhahayga dhaawacay. Celebrate waa dabaaldegid waaye. To celebrate inaad dabaaldegto is to do something waa inaad wax samayso to show saa u muujiso that an event in dhacdo is special ay qaas tahay ama wax ka duwan tahay inaad si gooniya ula dabaaldegto. We all celebrated dhammaanteen waynu dabaaldeganay when we heard the great news markaynu maqalnay akhbaartii wanaagsanayd ama akhbaartii weyneyd. Okay, determine ereyga determine waa decide inaad go'aansato waaye. Ereyga determine waa go'aansasho waaye inaad wax go'aansato. To determine wax go'aansato means waxa waaye to choose inaad doorato or make a decision ama inaad go'aan qaadato waaye. He tried to determine wuxuu isku dayay inuu go'aansado which one to eat first. Midka uu marka koowaad cunay laba shay haysaa midkii uu hormari lahaa cunitaankiisa ayuu isku dayay inuu go'aan ka gaaro waaye. Disappear waa mirqid ama suulid waa disappear waa lumid. To disappear means waxa waaye inaad lunto macnaheedu waxa waaye to go away ama not be seen inaad tagto amaan lagu arkin waaye. The top of the building dhakada sare dhismaha dhakadiisa sare meesha u sareysa is disappearing
in the clouds waxay ku miriqday daruuraha macnaha dhismo dheer waay daruurihii qariyay baa lagala jeedaa else waa kale something else wax kale someone else qof kale nothing else wax kale ma hayo else waa kale if you talk about something else haddii aad ka hadasho wax kale you talk about something different oo macnaheedu yahay waxaad ka hadashay wixii aad ka hadlaysay wax ka duwan if you talk about something else haddaad wax ka hadasho kale you talk about waxaad ka hadashay something different wax ka duwan I wanted a bake waxaan doonaya baaskiil for my birthday maalinteeda dhalashada but laakiin I got something else laakiin wax kalaan helay fair mar waa cadaalad mar waa bandhig mar macnooyin badan eragan leeyahay mar waa fiican oo wax wanaagsana mar waa bandhig mar waa xaqiiqo ah marka fair describes treating someone in a way fair waxay muujinaysaa inaad qof ula dhaqanto treating ula dhaqmid waaye in a way hab that's reasonable macquula ama right saxan he sold me his car wuxuu gaarigayga iga iibiyey for a fair price qiimo macquul ah follow waa qulqulka korontada ama biyaha ama gaaska wax qulqulaa la yidhahdaa follow where to follow is to move easily waa wuxuu inahee si fudud ay u socdaan and continuously joogta ah in one direction hal jiho the water waa biyaha flowed over the rocks biyuhee waxay qulqul ku mareen dhagaxyada korkooda and into the lake harada ayayna aadeen okay ereyga xiga forward forward maxaa loo isticmaalayaa forward waxaa loo isticmaalayaa xagga hore meesha u socoto jihada u socoto horteeda la yidhahdaa forward waxaa la yidhi marka if you move forward haddaa hore u dhaqaaqdo you move in the direction in front of you in the direction jihada in front of you hortaada ayaad aado move forward means forward waa hortaada inaad u socoto jihadaada inaad sii aadaa leedahay xagga hore when he saw his mother markuu arko hooyadii the baby cunugii crawled forward to her iyada ayuu u gurguurto ereg crawl waa gurguurasho hill waa dhul yar oo ka sareeya dhulka caadiga ah waa buurna ma aha laakiin meel yaro taaga waaye a hill is a round area of land waa dhul goob dhuleed oo wareegsan it is higher than kana sareysa the land dhulka around it ku wareegsan dhulka iyada ku wareegsan waa meel yaro ka sareyso taaga the sun was rising above the green hills macnaha buuraha yararka ah cagaarka ah oo dooga leh korkeeda ayay qoraxdu ka soo baxaysay level waa heer waaye a level is a point on a scale scale waa miisaan ama cabir point waaye that measures something wax cabirta please check the level of the temperature fadlan hubi heerka heerkulka level waa heer of temperature fadlan hubi please check the level heerka of the temperature heerkulka ereyga lone waa keli ah if someone or something is lone haddii qofi ama waxi lone yihiin they are the only one of that kind waxay noqonayaan iyagu waxa keli ah ee halkaa jira ama jooga alone waa keli marka waxaa la alone man nin keli ah oo keligiia walked along the street ayaa wadada toos ugu lugeynayay walk waa lugeyn socosho alongna waa toos the street puddle waa meel biyuhu ay degaan ama meel yaro balle ama biyuhu kusoo aruurana godana biyo fadhiistaan a puddle is a pool of liquid puddle waa maxay waa barkad biyood on the ground ee dhulku taala meel biyo fadhiisiya waaye when the ice melted markii barafkii uu dhalaalay it formed a puddle wuxuu samaysay balle ama meel biyo fadhiisiya noqoto macnaha ereyga response waa jawaab waa answer response jawaabta is the answer waa jawaab response ereyga response is the answer waa jawaab to a question waa su-aal jawaabteed waaye he asked if I was sad wuxuu weydiiyey haddii aan murugeysnaa my response was no jawaabteeduna waxay noqotay maya ma murugeysni season waa xilli
xilliyada roobka ama xilliyada sanadka. Season is a time of year waa waqti sanad. Spring sida guga, summer xagaaga, fall dayrta, and winter iyo jiilaal. Ereygan fall booskiisa waxaa caadiga lagu bedelay waa autumn, waa dayrtii waa American English waa marka. Americankan markuu tirinayo xilliyada seasonska wuxuu leeyahay spring kanuu ka bilaabaya ama ka midku doona ka bilaabaya spring, summer, winter iyo mid maqan oo la yidhahdo autumn. laakiin America markii la yidhaahdo spring, summer, fall soo gelinaya isaga. laakiin British wuxuu isticmaalayaa autumn marka iyo fall waa isku mid. Fall waxa uu yaqaana American English. Fall is a warm season. Dayrtu waa xilli diiran waaye. While winter halka jilaalkuna is very cold, uu aad u qabow yahay. Solution waa xal. A solution is a way waa hab to solve a problem lagu xalinayo dhibaato. There are many problems. Dhibaatooyin fara badan ayaa jira. We need solutions. Waxaan u baahannahay xal ayaan u baahannahay. Dhibaatooyin badan baa jira, xal ayaan u baahannahay. Ereyga west macnihiisu waxa waaye beer darayn waaye. To waste means inaad wax beer darayso waxa waaye macnaheedu to carelessly use, inaad si taxadar la'aan u isticmaasho something all up, dhammaan wax inaad si taxadar la'aan isaga dhamaysaa leedahay. Turn off the water, biyaha xir waaye, so you don't waste it, sida daraadeed biyaha ma beer daraynaysid. Weather waa if oo kale haddii. You use weather, waxay isticmaalaysaa weather when you must choose, marka ay tahay waajib inaad doorato between two things, laba shay marka kala dooranayso. I could not decide, ma go'aansan karin whether to go left or right. If haddii aan aado dhanka bidix iyo dhanka midig aan aadi lahaa ma aanan go'aansan karin. Haddaba halka waxaa inoogu eeg unitkii 7. halkan waa Macalin Abqari YouTube channel. anigana waa Ustad Maxamed Samatar, Ustad Abqari. soo dhawaada. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad caafimaad qabtaan. fadlan sharta, like-ta, subscribe-ta, gambaleelkana furo si aad u hesho cashiro joogta. aad baan idin salaamayaa. Ustad Maxamed Samatar nabadgelyo. Welcome to Macalin Abqari YouTube channel. aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.